إنا لله وإنا إليه راجعون inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawacan ilaahay ha bogsiiyo runtii dadka dhintay qaraabada aan ahayn waa ilaa iyo 11 qofood dadkaasna waxay ahaayeen dad maaragtay qaraabada oo meesha shir ku lahaa waa dad aan haba yaraatee wax shaqo aan ku lahayn dawlad waa dad ganacsata iyo dad maaragtay qaarkood odayaal iska yihiin iyo wax la mid ay ahaayeen hal qof oo maaragtay dawlad shaqo ku lahaa ma ahayn marka meesha balan ku lahaayeen qaarkoodna maaragtay alxamdulillah ilaaha badbaadiyay qaarna waa kuwa ku dhintay marka inta dhaawacana waxa leenahay ilaaha u naxariisto laakiin waa runtii waa dhacdo aad xanuun badan dad aan waxba galabsan oo maaragtay xataa hadii maaragtay qofka wax qaarkood bakaari ka yimaadeen qaar meer maaragtay xaafado fogfog ka yimaadeen kaliya waxay u yimaadeen arrimo family iyo arrimo qoys inay maaragtay ka wada hadlaan laakiin nasiib darro in dadkaas maaragtay meesha lagu baabiyay xildhibaan macallimo waxaad ii sheegtaa markii qaraxu u dhacayay weerarku bilaabanayay ma shir bay u fadhiyeen mise way soo aruurayeen oo weli shirka uma soo bilaaban weli shirka uma bilaaban laakiin intoodii badnaa way isu yimaadeen wiilal iyo gabdho maaragtay dad iyo odayaal way isku yimaadeen qaar kale oo badan oo ilaahay badbaadiyana waa jiraan oo maaragtay dadkii hore oo xoog ku soo baxay kamid aha dadka qaarkiisna waa markay wax dhacaan waa arkaysaa dadku qaar baa maaragtay qofba meel uu cararaya marka dadkii maaragtay meelaha qaarkood ku cararay ama meel galay waa dadka inta badan maaragtay dhintay laakiin dadkii ugu horeeyay albaabka ka soo baxay intoodii badnaa oo ma askartu ay soo badbaadisay marka ugu horeysay ay tageen waa dadka soo badbaaday marka ilaaha u naxariistaan leenahay gacanka xaq daran dishay dadkaasna waa maaragtay dad u baahan maalinba inay qof dilaan Soomaalina waxa laga rabaa inay maaragtay u istaagto sidii cadawgaas umada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed baabiinayo qofna aan u aabiyeelin ay isaga celin lahaayeen dadka dhintay marka imisa raga imisa dumara intaad ogtahay oo aad xaqiijisay inta maaragtay horta guud ahaan dadka dhintay anigu maaragtay waxaan ogahay dadka loo saaxiibaanay inuu noqo maaragtay beelo kala ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay meesha ku sugnaa laakiin anigu inta aan si hoose u maaragtay u ogahay waa 11 qofood oo maaragtay ay afar kamid ay gabdho ahaayeen inta kalena ay rag ahaayeen dhalinyaro ay ku jireen marka meeshaas kulanka ay ku lahaayeen iyo qaarkoodna way iska joogaan inta badan waa ogtahay dadka aan dhalinyarada mararka qaarkood markay maalinta soo shaqaystaan meelaha isaga soo shaaxan marka waa dad aan waxba galabsan oo hadda shaqadoodii caadiga iska wata marka ilaahay waxa uu ka rajaynaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii eladii ka tageen oo sabir imaan ka siiyo insha Allah maaragtay maalinan maanta aynayaan hubnaa in xaqdarrada lagu dilay ciqaabteeda tii alla xaqiisa ay jirtaa la isugu imaan doono waayay dadka dhintay ee 11 ah aad ii sheegtay ehelkana aatiin sida dhow wax mas'uuliyiin dawladeed ah ama xil dawladeed soo qabtay ama hayay ama hor u soo qabtay haba yaraatee ma jiraan hal qof xitaa oo maaragtay dadka qaarkiis waxay ka yimaadeen meel fog ka yimaadeen maba ahaba dad ku shaqale ama dawlad iyo wax la mid ah qaarkood maaragtay waxay ahaayeen dad maaragtay culimo ah qaar oo maaragtay diinta faafiyo macallimiina qaar waxay ahaayeen maaragtay dhalinyaro kuwa maaragtay jaamacadaha ka shaqeysta laakiin intooda badan waxay u badnaayeen ganacsato inta badan dad waxay ahaayeen ganacsi hoose iyo ganacsiyo leh oo kule magaalada waayahay yaa nagala wadaagi kartaa marka oo dad la yaqaan ah oo aad hal iyo laba dhihi kartaa wallahi dadka oo dhanba waa maaragtay muhiim ay wada ahaayeen waa dad odayaal oo la wada yaqaano kow iyo labo maaragtay hadda ma wada dhihi karo dadka oo dhan maaragtay annagu aan matalnaa laakiin dad xitaa wax kamid ah maaragtay aan dhalinyarnimadeen iyo carruurteen aan soo wada ciyaari jirnay nin waxa ku jira dhalinyaro oo Yusuf Mahatay Barrow la yiraahdo oo kubadaan wada ciyaari jirnay yaraantiisa aan aqaanay oo maaragtay dadka bakaara ka shaqeysto ganacsiga maaragtay muddo ka shaqeysanay aha qofna weligiis aanan maaragtay aflagaadeen dad dhibin maaragtay la yaqaano hadana wuxuu kamid ah waqtigiisa meesha ku baxay dadka meesha ku dhintay kamid aha gabar maaragtay la yiraahdo waxa kamid ah Maryan Shaali waxa kamid ah nabadoono oo maaragtay halkan deegaankoodii inta ka yimaadeen halkan magaalada soo aadeen waxaasay dadku inta badan maaragtay isugu jireen marka dad haba yaraatee wax xataa maaragtay dawlad weligood ka soo shaqeeya xataa kuma jirin kulankana wax mas'uuliyiin kala ma qayb galeen oo ayaga un baa u dhaxeeyay wax mas'uuliyiin oo kala qayb galay haba yaraatee ma jirin arrimo qoysayna ka hadlayeen marka
waxay ku tusaysaa nacaybka iyo cadownimada ay maaragtay kooxdaas u qabaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan